صحتي يمكن دويتان in sida section ka tahay la weeraro oo keedan kuleerka taasoo isaasantii la tiqday kimaanaha soo socda daafaas dhacdo waxay noqonaysaa dagaal weyn bay isu bedeli kartaa maadaama xaggan laga sifeeyay hay'ada wadamo badan ay la sifeeyeen sida maraykankiisa ay yihiin wadamada NATO marka arrintaas haddii si weynaato waa arrin gobolka ku faafaysa suuqyadana saameyn weyn ku yeelata waxyaalaha soo baxaa newsadan banaanta jiray newsada waxa ugu waaweynaa research la sameeyey baa sheegaysa in maalgelinta hay-adaha maaliyadeed ee soo gelaysa bitcoin iyada oo loo marayo ETF-yada ku salaysan USD mustaqbalka ama futureka ay ku keentay BTC maxay tolay si isa soo taraysa ay u dhaqaaqdo sida hanti dhaqaale oo maxay tolay guud ama macro asset waxa loo yaqaano wararka sidoo kale waxaa ku jira golaha sanadka maraykanka ayaa horey u sii dhaqaajiyey sharciga Genius stablecoin cod bixinta rasmiga ah waxay ahayd 68 inay ogolaadeen halkii 30 qofna ay diideen tani waxay bilow u tahay dood buuxda oo ka dhici doonta sanadka ka hor inta aan loo gudbin golaha wakiilada PayPal ayaa ku dhawaaqday qorshe ay ku keenayso BYUSD stablecoin-keeda shabakada Stellar taasoo noqonaysa fursad beeri ah marka laga soo tago Ethereum iyo Solana Crystal waxay ku dhawaaqday iyaduna USDC oo ah stablecoin-keeda rasmiga ah iyo CCTB version 2 ayaa si rasmi ah ugu hawl bilaabayaan Worldchain oo ah hormuud ku yahay Sam Altman marka halkaasay kusoo launch gareynayaan labadooda stablecoin-yaguna sidoo kale wararka waxaa ugu waaweynaa Israa'iil oo si buuxda u diyaarinaysa howlgalka dhaca Iran sida laga soo xigtay ilo dhowr ah oo maxay tole News dowladda Israa'iil ayaa si buuxda ugu diyaar ah inay howlgallo ka fuliso gudaha Iran waxda maaliyadda Maraykanka US Treasury-ga loo yaqaan ayaa dib u iibsatay 10 bilyan oo deyn ah taasoo ah mid la mid ah iibsashadii ugu weyneed abid taasoo dhacday usbuucii hore mar labaad bay 10 bilyan iibsatay maanta BlackRock ayaa iibsatay 1,163 milyan oo Ethereum ah oo maxay tole ay ku darsatay kaydkeeda sidoo kale Paul Tudor Jones maalqabeen caan ah oo Maraykan ah wuxuu ku tilmaamay Bitcoin mid ka mid ah hantida ugu fiican ee lagula dagaalami karo sicir bararka ama inflationka in ka badan 327 milyan ayaa la liquid gareeyay 24 saacadood ee ugu dambeeyay iyadoo 253 milyan laga saaray long position Trump wuxuu saxiixi doonaa amar fulineed saacadda markay tahay 6 barka xilliga America January oo ku beertay sabka Bitcoin shirkadii ugu horeysay ee Jarmal ah ee yeesha kayd istiraatiiji ah oo Bitcoin waxay ku dareen 100 BTC kaydkooda oo qiimahoodu qiyaastii uu gaadhayo $10 milyan